soo dhawaad saaxiib yaal waxa iga daawanaysid beejka King Suuriyan hadii kugu cusub waxaan ka codsanayna falo dhaato waxa loo guda jiraa maalmihii ugu dambeeyay ee Ramadaanka waxaana foodan ugu soo haayay ciidi halkaan waa mid kamid ah suuqyada waana mid ugu mashquulka badan halka in kala soo hadlay caawo sidoo kale ciidamada booliska ayaa markaas qayb weyn ka qaadanaya amniga markaas magaalada maadaama habeenkii ay tahay marka ugu mashquulka badan suuqaani oo maalinta ay Ramadaan tahay balse dadweynuhu habeenkii ay soo dukaamaysi tagaan waxa badanaa soo dukaamaysi tagaa waa carruurta iyo haweenka oo halkaan aan laga weyn habeen kasta qaar kamid ah bulshada halkaan u soo dukaamaysi tagay iyo waliba ganacsatada ayaan mikrafoonka la dhex qaadnay sida markaas ugu diyaar garoobeen ciidda iyo sidoo kale waliba ciidii hore waxyaabo ay gudwan tahay nasoorac muuqaalkana si share garay leegna saar saartay facal Cismaan kamida dhalinyarada iyo hooyooyinka ku dhaqan degmada Gurceel gobolka Galgaduud waxaan ku jirnaa u diyaar garowgii ciidul fidriga waliba maalmihii ugu dambeeyay waxaan suuqaada ka soo doonay dharkii ugu dambeeyay oo naga dhimanay iyo anigana waa gadanay ilmana waa gadanay hooyaan ahay ilmeygu oo adeeg doonta anna waa soo doon waa adeegta alxamdulillah wali wax yar ay dhiman waan dhameystirnaa inta caawanimo ka baxa suuqa rajayna waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa ciidanka booliska iyo traafikada oo ayakuna maarta jaamka jiray aad nooga la qayb qaatay habeen hore suuq soo aad wadooyinka jaam ay ahayn laakiin caawa alxamdulillah ciyalku wal maareynay hadda ani wiilkaana watay gacanta ku dhaganaa wala areebtaan isdhahay ayagana si qaas ah ugu mahadcelinaa dhammaan ganacsatada oo maxay tooy dhar aad u qurux badan qiimihiisuna jabayaan oo kan ayagana mahadcelinaa magacay waa Khadra waxa jooga degmada Gurceel waxa la isku diyaarinayaa ciida munaasabad ciid Ilaahay cimri iyo caafimaad uu gaarsiyo Ramadaankan Ilaahay nabadaha noogu dhameeyo waxa joognaa hoolkii weynaa ee Gurceel waxa meesha u dhar aku ciida u diyaar garoobeyna waxa waaye meesha u fadhida adiga Gurceel la yiraahdo ismaalanta ciidani ciidii hore ismaal ma dadka la yaabana meel kala marna laana waxa waaye ciida loo diyaar garoobo laba qof isfiire ma jirto ciida diyaar garoobeyna waxa la yahay ciiduna magacaygu waa aadan siyaad nuur oo ku nool magaalada Gurceel gaar ahaan hoolka weyn oo loo yaqaan hoolka bay niyow boqolkiiba boqol ma sha Allah bulshada kulay sidii aan ku ogaan jirnay ka wanaagsan waad moodaa in si fiican u diyaar garoobeen oo dharkii iyo ilmihii laga farhina 25 dambe ilaa iyo 20 wixii loo gaaro suuqa waa isbedelay mashquul badan baa laga dareemayay ilaa waliina sidaas waaye marka kulay خير ما إنا إلهي نور دميان كرجينا إن شاء الله سدان أكسون عيدي أيا مركان صدو تذكي كل رمضان كي صوص وميو عبادة ضد إلهي أقبله دم بيقول ذا في إلهي نقدر قان لنا شو تقول واي برشيد واسك برشيد اسك نودجال واي وبرشيد استغانة أصل جوتي برشيد اسك نواج جوجا كل واحد بربلان أو ماشي كده أو ما فوضى هذا مجران marka kulay dadkana waa yaqaanaan hoolkan aad iyo aad ay u soo tukaameystaan marka ciidaha soo dhawaadaan waxa u darnaata marka kulay suuqna sida adanka bandhiin ku aragteen aad iyo aad u mashquul u yahay maalin iyo habeenba meeshan waa ilaa iyo la saac habeen waan ku gaarnaa subaxdeena 2 saac ama hal saac bar aan la furaa marka ma sha Allah aniga hadda waa iska roognahay joogana waa degan yahay marka alxamdulillah